Hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa muddo dhowr toddobaad ah diidan inay taleefanka ka qabtaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal oo soo xiganaya mas'uuliyiin ku sugan Bariga Dhexe iyo Mareykankaba. Fariimaha qanacsanaan la'aanta oo ay direen dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo amiirka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa ku soo aaday iyadoo labada hogaamiye ay wadaageen walaaca ku aadan jawaabta Mareykanka ee gantaalada iyo duqeymaha loo adeegsaday droniska ee lagu qaaday Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay sheegteen Xuutiyiinta ay taageerto Iiraan iyo Yemen. Labada dal ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ka niyad jabsan yihiin xaaladda wadaxaajoodka heshiiska nukliyeerka ee Iiraan ee u dhow in isfahan laga gaaro, sida lagu sheegay wargeyska Wall Street Journal. Madaxa International Atomic Energy Agency ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka Iiraan uusan quseyn danaha ammaanka ee dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka, wuxuuna heshiiskaasi ku tilmaamay mid adag. Mareykanka ayaa dadaal ugu jira sidii uu u hagaajin lahaa xiriirka uu la leeyahay labada dal, isagoo u muuqda inuu yareynayo xiisadda shidaalka caalamka kadib markii madaxweyne Biden uu Talaadadii ku dhawaaqay mamnuucida soo dejinta saliidda Ruushka, iyadoo qiimaha gaaska uu gaaray heerkii ugu sarreeyay abid caalamka oo idil. Waxaa jirtay xoogaa rajo ah oo laga qabay inay taleefanka ka qabtaan madaxweyne Biden Maxamed bin Salmaan si diiradda loo saari lahaa xiisadda saliidda, balse ma dhicin. Waxaa sidaasi wargeyska WSJ u sheegay ilwareedyo ku sugan Mareykanka. Mareykanka ayaa doonaya in la abuuro isbahaysi midaysan oo dhanka saliidda ah oo ka dhan Ruushka, iyadoo lagu ciqaabay weerarkii uu ku qaaday Ukraine. Sacuudiga ayaa in muddo ka niyad jabsanaa xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya Mareykanka tan iyo markii Biden loo dhaariyay xilka, sida lagu sheegay warbixinta. Sacuudiga ayaa dowladda Mareykanka ka doonaya inay taageero dheeri ah ka siiso dagaalka Yemen iyo inay ka caawiso barnaamijkooda nukliyeerka ee rayidka. Sidoo kale, Sacuudiga ayaa Mareykanka ka raba in loo caddeeyo mowqifka sharciga ee uu Mareykanku ka taagan yahay dacwadda laga soo gudbiyay Maxamed bin Salmaan ee la xiriirta dilka wariye Jamaal Khashoggi. Wareysi uu siiyay wargeyska The Atlantic horaantii bishan, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ayuu kaga hadlay xiriirka isaga iyo Biden, isagoo sheegay inuusan dan ka lahayn haddii Biden uu qalad ka fahamsan yahay waxyaabaha isaga quseeya iyo haddii kaleba. Sidoo kale, bin Salmaan ayaa yiri waxaa waajib ku ah Biden inuu ka shaqeeyo danaha Mareykanka, isagoo intaasi ku sii daray inuusan xaq u lahayn inuu hadal u jeediyo dadka Mareykanka, sidaas oo kalena laga rabo Biden. Amiirka dhaxal sugaha ayaa sidoo kale ku adkaystay inuu Riyaadh diyaar u tahay inay ilaaliso xiriirka taariikhiga ee kala dhexeeya dowladda Mareykanka.